Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono mowqifka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee ku aadan khilaafka iminka wadanka ka jira kaasi oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo. Warbixinteena ayaana daawadayaal ku eegi doonaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee la kala safan Roble iyo sidoo kale Farmaajo iyo waxa madaxweynayaashaasi ku kalifay in ay taageero u muujiyaan labada dhinac. Hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo u dhaxeeya xubnaha golaha waxaana shirkan lagu gorfeenaya sidii loo sixi lahaa arrimaha doorashooyinka oo ay ka soo laabteen qaladaadyo dhowr ah. waxaa la doonayaa in shirkan laga soo saaro warmurtiyeed ku qotoma xaaladda dalka iyo sidoo kaleba arrimaha doorashooyinka oo goluhu hormuud u yahay isla markaana uu hagayo. waxaa shirkan ka qayb galaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isagu shir gudoona iyo sidoo kale xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. shirkan Muqdisho ka soconaya ayaa waxa hore u dalbaday xubnaha mucaaradka Soomaaliya iyagoo sheegay in shirkan uu muhiim u yahay geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. waxaa dhawaan isqabtay oo khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. khilaafkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay arrimaha doorashooyinka iyo qaabka uu wax u maamulayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama uusan ku qancin madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya isla markaana uu muddaxileedkiisu dhamaaday 8 February ee sanadkii dhamaaday 2021. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka dharagsan waxa uu yahay Farmaajo ayaa waxa uu geed gaaban iyo mid dheerba u koray sidii uu u niyad jabin lahaa ama uga takhalusi lahaa aragtiyada guracan ee uu Farmaajo ku doonayo in uu dib ugu soo laabto talada dalka. waxaa arrimahaasi oo idil gacan markaasi mugle ku siinayay xubnaha mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kaleba qaar ka tirsan dowlad goboleedyada dalka sida Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale taageero ka helin dhanka iyo markii la fiiriyo saddexda maamul goboleed ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kaleba Hirshabeelle. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isagu waxa uu ahaa shakhsi cadeeyay mowqifkiisa ka gadaal markii uu soo shaabaxay isla markaana uu soo laba kacliyay khilaafka u dhaxeeya Roble iyo Farmaajo. Laftagareen ayaa waxa uu warqad uu soo saaray ku sheegay in uu taageersan yahay shir uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kaasi oo looga hadli doono markaasi arrimaha doorashooyinka sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Soomaaliya. Cabdicasiis Laftagareen ayaa markaasi qaadacay shirkii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iclaamiyay isla markaana uu isugu yeeray xubnaha golaha wadatashiga qaran. waxa uu sheegay in shirkaasi sababaha uu diiday ay tahay in markaasi lagu xadgudbay gudiyada doorashooyinka madax banaanidooda ka gadaal markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu eeriyay 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka sidoo kalena la eeriyay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro. arrimahaasi oo idilaayu Laftagareen u sababeeyay ka soo qaybgal la'aantiisa shirka golaha wadatashiga qaran. hayeeshee shirkii markii uu furmay waxaa lagu arkay Cabdicasiis Laftagareen oo madasha fadhiya isla markaana la caawinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale gobolka Banaadir duqaysa markii la fiiriyo Cumar Filish iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Laftagareen ayaa loo fasirtay inuu yahay nin aan shakhsiyad markaasi damiir ku dhisan aan lahayn isla markaana aan go'aan rasmi ah markaasi ka soo fulin. waxaa Laftagareen la sheegay inuu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si weyn u taageersan yahay isla markaana uu yahay jaajuus siyaasadeed. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale markii aynu eegno sida Hirshabeelle iyo sidoo kaleba Galmudug
cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo sidoo kale axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa waxa ay soo gaareen magaalada caasimadda ee muqdisho kadib maalmo markii uu soo labakacleeyay khilaafka Rooble iyo Farmaajo. cali guudlaawe iyo sidoo kaleba axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo iyagu markaasi si weyn looga dhorsugayo go'aankooda xasaasiga xilligan oo uu dalku marayo ayaa markii ay muqdisho soo gaareen waxa ay xaaladdu ka bilaabeen in ay dhexdhexaadin ama waan ay ka dhex biloobaan labada dhinac ee siyaasadda isku haya. waxa markaasi la soo wariyay in Laftagareen uu doonayay in markaasi labadan madaxweyne uu ku dhinac noqdo, balse nasiib xumo isaga go'aankiisa markii hore ayuuba cadeeyay oo war qoraal ah ayuu soo saaray. Laftagareen ayaana arintaasi ka xumaaday, waxa uuna ka qoomameeyay oo uu ka shalayay warqadii uu soo saaray. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo isagu markaasi si weyn ugu dhunduleela arrimaha siyaasadda heer federaal, weliba inta ugu badan waqtigiisa ku qaata magaalada caasimadda ee Muqdisho, ayaa waxa uu markii uu soo gaaray Muqdisho ka bilaabay kulamo xasaasi ah oo uu la yeelanayo madaxda midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya. sidoo kale kulankan ayaa waxa ku weelinaya Qoorqoor hogaamiyaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe, waxaana shirkan si weyn diiradda loogu saarayay sidii loo soo afjari lahaa madmadowga siyaasadeed ee ka dhex oogan labada mas'uul ee dalka ugu sareeya waa Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble oo ay isqabteen 27kii bishii December sanadkii idlaaday ee 2021. xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa mid cakiran, waxaana markaasi laga doorayaa qaabka iyo xaaladdu sida ay noqon doonto. gambashada Guudlaawe ee mowqifkiisa siyaasadeed ayaana waxaa lagu tilmaamay arin aan u cultami karin deegaanka iyo sidoo kaleba dadka uu matalo. madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed oo u diiday in uu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee uu dalku ku jiro. Guudlaawe oo la ogsoon yahay inuu u dhow yahay hoggaanka waqtigiisu dhamaaday ayaanan awoodin in uu shaaciyo aragtiyadiisa, waxaase taa beddelkeeda ee marxaladdu ku qasabtay in uu aamusnaan ku taageero Farmaajo. midowga musharaxiinta gaar ahaan madaxweynayaashii dalka soo maray ayaa saaray culays siyaasadeed, iyagoo ku wargeliyay in matalaadooda aanu kaalin ku yeelan karin hoggaanka waqtigiisu dhamaaday. cabsi xoogan ayuu sidoo kale ka qabaa senator Xaaji Muuse Suudi Yelxo, kaasi oo indhaha ku haya dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed, waana nin og in awood ciidan Hirshabelle looga farmaroojin karo mar hadduu la safto kooxda madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xoogga ciidamada badbaado qaran oo ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe waa qayb ka mid ah waxyaabaha Guudlaawe ku kalifaya in uu aamusnaan ku gaabsado, taas oo Farmaajo aad uga careysiisay. Farmaajo ayaa doonayay in Guudlaawe uu la jaan markaasi noqdo Laftagareen iyo Qoorqoor, balse cadaadiska adag ee hor yaala ayaa arintaasi diidaysa, waxaana waqtigan mid liita lagu tilmaami karaa xiriirka kala dhaxeeya kaligii taliye Farmaajo ayaa hore uga carooday Guudlaawe kadib doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay Jowhar, kuwa oo looga awood batay Farmaajo iyo xulafadiisa, waxaana si gaar ah cabsi ugu beertay kusoo bixitaanka kursiga aqalka sare ee senator Muuse Suudi Yelxo oo ah nin yaqaan damaca Farmaajo ee ku wajahan burburinta dowladnimada Soomaaliya. cadaadiska uu Guudlaawe la kulmayo ayaa ka reebaya saaxiibadiisa siyaasadeed ee Laftagareen iyo Qoorqoor, kuwaas oo iminka u adeegaya Farmaajo isla markaana taageersan damac walba oo uu leeyahay. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo saar channelka fura gambalelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid lamid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.